guddiga gurmadka magaalada Qardho ayaa waxa ay deeq ka kooban qalabka lagu dhiso guryaha ay kala wareegeen shacabka deegaanka Xumbabays ee gobolka Bari. Faafahinta warkana waxa ay noo soo diray wariyahayaga Saciid Muumin Axmed. shacabka deegaanka Xumbabays ee gobolka Bari ayaa deeq iska soo ururshan ku wareejiyay guddiga gurmadka magaalada Qardho. deeqdan oo ka kooban 2 gaari oo shamiito ay sheegeen in kaga qayb qaadan doonaan sidii loo dayactiri lahaa goobaha ay burburiyeen dadkii ku soo rogmay magaalada Qardho. ugu horeen aqoonyahan Cabdi Cali Kiimiko iyo Suldaan Maxamuud Jaamac Yuusuf ayaa goobta ka hadlay waxayna ka warbixiyeen deeqdan ay maanta ku wareejiyeen guddiga gurmadka magaalada Qardho. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xukuumadda Puntland iyo guddigii madaxweynuhu magacaabay oo run ahaantii si fiican uga qayb qaatay gurmadkii magaalada Qardho si fiicanna u maamulay. waxaan halkan u taagannahay maanta in aan wareejinno dadka deegaanka Xumbabays oo iska soo ururiyay deeq ay ugu talagaleen gurmadka walaalaha Qardho. dadka deegaankaas Xumbabays waxay iska soo ugu talagaleen inay uga qayb qaataan gurmadka walaalaha Qardho 2 gaari oo sibir ah oo midkiiba uu saaran yahay 150 kiish. walaalaha Xumbabays markasta way garab taagan yihiin waana ay la qaybsanayaan walaalahood dhibaatada soo gaartay. maaragtay dhibta soo gaadhay Qardhona waa dhib muuqata walaalaha inta dhamaantood ka qayb qaataan aad baan ugu mahadcelinayaa. dadka deegaanka Xumbabays oo runtii aan matalayo odayga u ahay waxay dirayaan message ah maadaama hadda musiibadii laga joogay xoogaa waqti ah in dib u dhiskii la bilaabo maadaama ay waxa dhibta weyn gaadhay ay hayeen ganacsigii iyo suuqyadii dadka masaakiinta waratooyinka ah ay maaragtay ku ganacsanayeen dib u dhiskii magaalada in la bilaabo message ah ayay dirayaan. ayaguna maanta ay bilaabeen 2 gaari oo sibirka ah ayay kaga qayb qaateen. marka sibir aragtidna sibir waxay la tahay lama cune wuxuun baa lagu dhistaa. marka gudoomiyuhuna waa maqlayaa message-kaasna waxa weeye waan diraynaa markii koowaad insha Allah taala noqomayso mar walbana way garab taagan yihiin. duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan Sheekh Fuad Aflo iyo wasiir dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha Puntland Maxamed Xasan Ciise ayaa uga mahadceliyay suldaanka iyo shacabka degmada Xumbabays siday u soo garab istaageen degmada Qardho. halka uga mahadcelinaynaa deegaanka Xumbabays oo runtii ah deegaan ballaaran oo saaka halka soo gaarsiiyay shimidka 2 gaari oo halka taagan iyo kaga qayb qaadanaya dadkii ay guriyahoodu wax ku yeeleen roobabkii. runtii wax badan baa raashin la keenay wax badan baa maacuun la keenay laakiin sibirku waa yara wax malay baran baa waxa keentay baran baa keentay waxaana ku xigtaa nimanka la yiraahdo Xumbabays waa ku xigtaa. marka waa uga mahadcelinaa sababtoo dhismaha guryaha la dhisayo dhawaan qalabka u baahan yahay waxa way waa shamiito aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. waa sidaas la sheegayo oo raashinka waa loo baahan yahay wixii dhismaha waa loo baahan yahay. aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa dadkii la baxay iyo deegaankiiba in ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay subxaanahu wa ta'aala khaatimadooda hagaajiyo. aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana wax loo baahan yahay sidoo uu sheegay suldaanku waa runtiisa wuxuu yiri wixii kale oo la keenayo waa la keenay laakiin waxa la joogaa way xilligii dib u dhiska oraahdaas uu qabtay oo ah xilligii dib u dhiska waxaanu marka bilaabaynaa buu yiri xilligii dib u dhiska la sameyn lahaa ayaanu barbilow u nahay inkastoo qoladii baran uga soo horeeyeen oo 600 kiish ay keeneen oo sibir ah. Saciid Muumin Axmed Soomaali Cable Qardho.